السلام عليكم maanta waxaan ka hadlaynaa saddexda xayawaan ee ugu halista badan badda. kow libax-badeedka cad. libax-badeedka cad waxaa lagu tiriyaa inuu ka mid yahay xayawaanada ugu khatartan badan ee ku dhex nool badda sababo la xidhiidha cabirkiisa, xooggiisa iyo dabeecadda ugaadhsigiisa. libax-badeedka cad qiyaastii ilkihiisa waxay gaadhaan 50 ilaa 70. waxa uu leeyahay ilka xooggan oo fiiqan, si fududna isugu qaniini kara lafaha iyo hilibka. sidoo kale waxa uu dabaalan karaa saacaddii masaafo dhan 35 mayl. libax-badeedyada cadcadi waxay leeyihiin dareen aad u dheer oo ay awoodaan inay dhibic dhiigga ka uriyaan masaafo 1 mayl u jirta. shabeelbadeedka. shabeelbadeedku sida libaaxa cad ayuu leeyahay dareen ur ah oo aad u xooggan, waxaana uu awoodaa inuu meel fog ka soo ogaado xaddi yar ugaadhsigiisa ah. shabeelbadeedka ayaa la ogyahay inuu awoodo in ugaadhsigiisa ka soo uriyo ugu yaraan 1/4 mayl, iyadoo ay ku xidhan tahay arrimo badan sida xaaladda biyaha iyo nooca ugaadhsiga. shabeelbadeedku qiyaastii isnaylkiisu waxay gaadhaan 50 ilaa 60 ilkood, kuwaas oo loo habeeyey dhowr saf. waxay leeyihiin ilko loogu talagalay in lagu gooyo ama lagu jeexjeexo hilibka adag ee ugaadhsigiisa. way lumin karaan oo bedeli karaan ilkooda inta ay nool yihiin noloshoodoo dhan. shabeelbadeedku waxa uu leeyahay qaab u gaar ah oo beddelka ilkaha ah, iyadoo ili kasta lagu bedelayo mid cusub 7 ilaa 2 toddobaadba mar, taasoo ka dhigaysa inta uu nool yahay noloshiisa inuu isticmaali karo 10 ilkood. 3 yaxaaska biyaha dhanaan. yaxaaskan ayaa loo arkaa mid ka mid ah xayawaanada ugu khatarta badan adduunka sababtoo ah dhererkiisu waxa uu gaadhaa mararka qaar 5 ilaa 6 mitir, miisaankiisuna 1000 kiilogaraam. yaxaaskani waxa uu leeyahay ilko gaadha 64 ilaa 74 ilig, tan oo awood u siinaysa inuu burburin karo lafaha ugaadhsigiisa. waxaa kaloo lagu yaqaan inuu yahay xayawaan dhuleed. yaxaaskan waxaa laga heli karaa xeebaha iyo webiyada biyaha macaan, dooxooyinka. sidoo kale yaxaaskan waddamada lagu yaqaan waxaa ka mid ah waqooyiga Australia, Indonesia iyo qaybo ka mid ah koonfurta bariga Aasiya. yaxaaskani sidoo kale waxa uu leeyahay dareen ur ah oo aad u sareysa. waxa uu ku leeyahay xagga sare ee afkiisa xubin u gaar ah urta oo loo yaqaan Jacobson, taasoo ka caawisa urta hawada iyo biyaha. taas waxa u dheer inuu ku sahay tago si uu u helo goob cusub oo uu degi karo.